nin meel yar ijiin ku haysta iyo qabyaalad yar ina dhaqi mayso waynu la dagaalamayna arrinka waxaan ballan qaadaynaa inuu dalkani siduu u heli lahaa leyd jaban annagoo dawladda iyo madaxweynaha uga wakiila inaanu u ballan qaaday dadweynaha ugu ballan qaadayno inaanu hadduu awoodda saari doono insha allah kulanku wuxuu isla qaatay in commissionka nidaaminta korontada iyo hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ka wada shaqeeyaan dhaqangelinta halbeega korontada Somaliland Electric Standards of Somaliland Electrification marti sharafta gudoomiyaha commissionka gudoomiye ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta agaasimaha guud ee commissionka commissionerada dhammaan shirkadaha leydka iyo daneeyayaasha kale sida ardayda jaamacadaha iyo macallimiintoodii ka soo qayb galay munaasabadan marka ugu horeysa waan idinka mahadnaqaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barlabaadka waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo shirkan oo sida xamda halkan ka sheegtay aan ahayn kii ugu horreeyey noqonna doonin kii ugu dambeeyey insha allahu tacaala isagoo intan ka ballaadhan baynu isugu iman doonaa faahfaahin badanna leh waxaanu ugu bishaaraynaynaa shirkadaha leydhka shida ee boorame berbera iyo 4 shirkadood Hargeysa in shirkadii u furi lahayd tababarka iyaduna ay diyaar tahay wiiga soo socda hadii ilaahay yiraahdo ay bilaabi doonto hawshii wararka looga baahan yahay insha Allah taala aynu wadaagi doono taana sidaynu halkan ka ballan qaadnay shirkad walba warkeeda loo ilaalin doono laakiin laga tababari doono xagga dhaqaalaha xagga farsamada iyo dhinacyo fara badan oo ugu yaraan 5 jiho si aynu hello shirkado efficient ku financially iyo technically labadaba horta anagu waxaanu commissionkii cusbaaye imika shaqada waanu ku cusubnahay waxaan si ballan qaadanaa waxa kale oo aad horta u salaamayaa qabaqaabiinta ESWG oo si fiican oo sharaf leh oo madasha sharafta leh soo qabaqaabiyay soo gorfeeyay ayaa iyaga salaamay aad u salaamaya horta anagu commissionka cusub baanu imika ku cusub shaqada waanu ku cusubnahay hase ahaatee waxa naga go'an ama fiishka dawladdu ay too madaxweynuhu sidoo ku ballan qaaday in dalku uu helo leyd jaban la isku haleyn karo adduun la beedekeeda leeyahay nadiifa deegaan wanaagsan hay'ado badan baanu shaqada la leenahay haday deegaan ka tahay waxaanu ballan qaadanaa inaanu si fiican aanu warshadaha leydhka dhammaan hay'adaha kale dawladda inaanu si wanaagsan aanu ula shaqeyno arrinka iyaga shaqada noo taalan aanu dardargeli doono wixii shuruuc ku dhiman commissionka nidaaminta tamarta inaanu dhammaystiri doono waa dhalinyar xamanayo commissionka waa dhalinyar xamanayo waxa la yidhi war aad uma shaqeynayni waxaanu ballan qaadaynaa inaanu shaqada intayada qabsan doono hadduu ilaahay idmo markaa horta kadaanu commission ahaan waxaanu horta la barwaan ka dhiganaa wixii sharci dhiman inaanu u samayno wixii commissionka laga rabay hadduu alla bedelka nin ijiin meel sharci buu dalku leeyahay haddaa horumar la doonayana nin meel yar ijiin ku haysta iyo qabyaalad yar ina dhaqi mayso waynu la dagaalamayna arrinka waxaanu ballan qaadaynaa inuu dalkani siduu u heli lahaa leyd jaban annagoo dawladda iyo madaxweynaha uga wakiila inaanu u ballan qaaday dadweynaha ugu ballan qaadayno inaanu hadduu awoodda saari doono insha Allah si hufnaana baanu la shaqeynaa cid kastoo wada shaqeyn leenahay wasaaradda tamarta iyo macdanta si fiican baanu la shaqeynaynaa dhammaan daneeyayaasha tamarta waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib waxaan ku faraxsanahay inuu kulankii labada cisho inoo socday ee 27 bisha iyo 28 bisha si guula inoogu soo dhamaaday oo uu ka dhacay discussion iyo is-afgarad halkii looga sii dhaqaaqi lahaa iyo qorshayaasha cusub ee lagu dhaqaaqi doono muddada soo socota ay ka wada tashadeen iskana afkarteen dhammaan daneeyayaasha kulankeena warmurtiyeedkii ka soo baxay ayaan rabaa inaan halkan insha Allah iskula akhrino dhammaan daneeyayaasha waxay isla qaateen qodobada hoos ku soo socda in uu
la isla qaato oo lagu shaqeeyo qorshe hawleedka soo socda. kulanku wuxuu bogaadinayaa xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya dhammaan daneeyayaasha aagga korontada Somaliland. kulanku wuxuu isla qaatay in la xoojiyo wada shaqaynta iyo xog isweydaarsiga daneeyayaasha aagga korontada tamarta. kulanku wuxuu isla qaatay in la xoojiyo dhaqangelinta xeerarka, siyaasadaha, nidaamyaasha, habraacyada iyo hagayaasha aagga tamarta. kulanku wuxuu isla qaatay in la kordhiyo helitaanka korontada gaar ahaan dhulka miyiyada iyo ka fog magaalooyinka ee aanay hore korontadu u gaadhin, iyadoo la dhiirigelinayo korontada cusboonaata. kulanku wuxuu isla qaatay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo hoos u dhigista qiimaha tacriifada korontada oo inagu hagi doonto naguna hogaamin doono Komishanka Korontada Somaliland. kulanku wuxuu isla qaatay diyaarinta iyo dhaqangelinta xeer nidaamyaasha smart metering-ka gaar ahaan iyo cabashada macaamiisha xeer nidaamyaashooda consumer compliance-ka. kulanku wuxuu isla qaatay in Komishanka Nidaaminta Korontada iyo hay'adda dhowrista tayada Somaliland ka wada shaqeeyaan dhaqangelinta halbeega korontada Somaliland Electric Standards of Somaliland Electrification. kulanku wuxuu isla qaatay in hay'adda dhowrista tayada ay ku hubiso in qalabka dalka soo gelaya iyadoo lagu xidhayo intaanu ka soo dhaqaaqin goobta lagu soo saaray dalka doonta ha ahaato ama India ama China ama Imaaraadka oo ugu badan in lagu xidho certificate of compliance containerkana halka lagu siligaleeyo si loo hubiyo tayada. markuu Somaliland soo galana shahaadadaas ay waajib ku noqonayso oo ay maraakiibtu soo qaadi doonaan certificate of compliance-na waa la isla qaatay in la hirgeliyo. kulanku wuxuu isla qaatay in diiwaangelinta shahaadasiinta xirfadlayaasha korontada Somaliland iyadana la sameeyo si ay noogu soo baxaan xirfadlayaal haysta shahaadooyinka oo iyaguna aan sameeyno. kulanku wuxuu isla qaatay in la dhiirigeliyo maalgashiga maxalliga iyo maalgashiga caalamiga loona fududeeyo in la maalgashado. dhammaantiin mar labaad waxaan idinka mahad celinaynaa sida aad uga qayb qaadateen iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan rajaynaynaa kulanka xigana insha Allah inaan isugu nimaadno inaga oo dib u eegi doono wixii inooga hirgalay warmurtiyeedkeena iyo go'aanadaan isla qaadanay. aad baan idinku mahad celinaynaa hadday ku tahay iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankuna saas uu inoogu xidhan yahay. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.